حمر بان كان من حرالة من نبضبا وإذن سو حرستي حرالة من نبضبا حيسان قبناي حرالة من نبضبا حشمت بان حمبار سنة حرالة من نبضبا حلبان حيرين ناي حرالة من نبضبا مقالدي علومدي من نبضبا maanta waa maalin weyn in badan baan sugaayay inaan xaraalo imaado ilaahay baa keenay meel badan baan tagay oo roog casla ii fidiyay meeshii ugu qiimaha badneed oo maantay la soo marsiiyay waa meesha la ii dhigay hiddihii iyo dhaqanka dhaxalkii hooyo iyo lama huraankii waa maasantiin xildhibaan duniyo xildhibaan sakariya iyo senatarka guddoomiyaha degmada dhammaan shacab weynaha sharafta leh ee reer xeraale oo ugu horeeyo ugaaskooda kulligiin waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo dadka soomaaliyeedna ay imaqlaan meel walbo ay joogaan in guddoomiyaha degmada waxgaradka aqoon-yahanada xildhibaanada iyo dhammaan shacabka reer xeraale ay maanta dawladda federaalka ku soo wareejiyeen 11 tignika oo beebeeye ay ku jiraan iyo ciidankoodii oo yidhaahdeen waxaan ku wareejinnay dawladda federaalka uu matalayo ra'iisul wasaarahoodu amniga magaalada xeraalena marka lala wareego hubkaas waxaa ka mas-uula dawladda federaalka si kale ma ahan waa soomaaliya ha noolaato wax kale ma ahan waa soomaaliya oo hore u socotay wax kale ma ahane waa qofkii shaki qabay oo maanta tusaale xeraale ka helay waxaan leenahay xeraale ku daysada raaca dariiqa xeraale fahma waxay reer xeraale fahmeen hubka iyo qoryaha waxaa loogu talagalay dawladdana waxaa loogu talagalay inay shacabkeeda ilaaliso waxaan leeyahay walaalahay reer xeraale waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta waa ku mahadsantihiin inaad soo wareejiseen hubkii waxaan faray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyayaasha kale inay hubkaas la wareegaan sida ugu dhaqsaha badan lana tusiya shacabka soomaaliyeed marka ay la wareegayaan sugaanna amniga magaaladan iyagoo ku sugaya ciidan lagu caawiyey shacabka magaaladan jooga waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka hadlo oon sheego inaan soo marnay intaanan halkan imaan huurshe halkaasoon kula soo hadalnay shacabka soomaaliyeed oo halkaas degan waxaan ognahay in huurshe iyo xeraale khilaaf uu ka jiray waxaan ognahay in odayaal soomaaliyeed ay wakhtigooda geliyeen inay xalliyaan khilaafkaas waxaan u soo sheegay iyagana in la xallin doono idinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego inaanan halkan ka tegi doonin ilaa caawa aad ii sheegtaan in khilaafkaas la dhammeeyey sababtu waxa ay tahay waa la soo dhaafay wakhtigii dagaalka iyo colaadda dadka wareejinaya hubka oo reer xeraale waxba kuma aha walaalahoodna inay la heshiiyaan tusaalahaas awgeed ayaan hubaa in inta dhiman aan dhammaystiri doonno inta aan galabta idinla joogno aniga iyo wafdigeyga intaas ka sokow aniga iyo wafdigay la socday waxaan maalmahan ku dhex soconnay dawlad goboleedka galmudug halkaasoo aan aaminsannahay inay caqabada soo food saareen laakiin aan ugu nimid shacab weynaha reer galmudug inaan dib ula dhisno dawlad goboleed xor ah mid ah toosan tayaysan
oo loo wada dhan yahay oo himiladoodu ay tahay inay siiso adeeg hufan shacabka reer galmudug reer xeraale waxaan idin sheegayaa marka si dalku hore ugu socdo maadaama aan leenahay nidaam federaali ah waa inaad heshaan dowlad goboleed shaqaynaya laakiin u wada shaqaynaya dadka degan nawaaxiga dowlad goboleedkaas oo aanan u shaqaynayn qayb ama qolo laakiin uu ka dhisan yahay nidaam shacabka u wada shaqaynaya dalkeennu wuu ka soo gudbay wakhtigii sadbursiga wuu ka soo gudbay wakhtigii beenta la dabooli jiray wuu ka soo gudbay wakhtigii runtiga laga cabsan jiray wuu ka soo gudbay wakhtigii dowladnimada lagu danaysan jiray waxaan joognaa wakhtigii dowladda shaqadeedu ay ahayd inay shacabka u adeegto maanta waxaa idin yimid shaqaalihiinni idinka idin shaqaynayay oo aniga aan kow ka ahay waxaan rajaynayaa markaa inaad ka qayb qaadan doontaan dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug kaalintiina aad ka qaadan doontaan si xuquuqdiinnuna ay u sugnaato laakiin waxaan idinku ammaanayaa inaad maantay qaadeen tallaabo geesinimo leh dhiiri gelinaysa qarannimada qiiro gelinaysa qof walboo Soomaali ah muujinaysa haddii cidi ay rajo la'aan qabtay rajadii ummadda Soomaaliyeed inay soo noqotay tusaale ciddii doontana kaalay u soo xareysa xeraale waa mahadsantihiin